halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasta adduunka aad ku nooshihiin. waxaan rabaa inaan ka hadlo maamul goboleedyada arrimo yaryar oo taabanaya. waxaa shacabka Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo way aragga Soomaaliyeed waxa uu cad in ay qaybo ka mid ah Soomaaliya dekedaheedii Kismaayo iyo Boosaaso ay cid gooni ay maalayso. maxaa u diidaya Galmudug inay xaradheere ay maasho ayadoo cid kale wax ka siiyeen? Hirshabeelle maxaa diidaya inay dekadii ceel macaan amba cadala ay dekad ka dhisatay maasho? maxaa diidaya koonfur galbeedna inay baraawo maasho? maxaa diidaya dowladnimo ma an intaas kaliya ayaad anfacaysa dowladnimo, laakiin waa idin la sirsirashowha. dowladii idinka cudadiina dowladii in lagu maalo lagu galaansada la rabaa had ogolaayaysiin. doqonnimo waa taas, waa doqonnimo. idinkana wax yaroo shilmaana oo shacabka Soomaaliyeed ka dhaxeeyo dekadaas ka soo baxay idinkula galaansaha iyo wax shisheeye dhidhina laga soo qaada idinkula galaansaha. taas doqonnimadiina waa. dowladda waxay ogolaahaysaa ducfinimay ogolaahaysaa. hadday ducfinimo ogolaato adi maxaa ku diidaya inaad noolaato dekadaha qodaada ka maasho? aniga gobolka Banaadir ayaan ka soo jeedaa. waxaa la yiri qabiil hebel ah tahay meel hebel socojaga ka doono gobol hebel ka soo jeedaa. Banaadir meeshan waxaa la yiri waxay ka dhaxaysaa Soomaaliya oo dhan. hadday Soomaali ku heshiiyeyso oo dib uunan dhacaynin saas waa la ogolahay. laakiin markay dowladda ay ogolaato cadaalad darre iyo federaal oo cadow abaabulo, markay dowladnimada Soomaaliyeed ay ogolaato, markuu aqoonyahanka Soomaaliyeed oo ducufkaas oo danyarta ku baaba'ayso ay ogolaadaan, meeshaas maxaa ka soo bixi karo? waxaa ka soo bixi kara ducfinimo. waxaa ka soo bixi karto cid gooni inay ma arkin oo xoolihii danta guud ku takrifasho. in la arka meeshan kuma dhalane waxa la yiraaho meel hebelaad ku dhalatay aqoonyahan kastoo yahay la yiraaho meel hebel xil u dooro meeshan xabad kaama yaaliin. cadaalad darradaasi ka timid waxay ka timid dowladda Soomaaliya ayay ka timid. waxay ka timid qarannimada. maxaa saldhig u ah? saldhignimada unu ka ogolaanay oo 4.5 in wax lagu qaybsado annaka ogolaanay heerta cad. waxaan ogolaanay historygeena iyo dastuurkayna inaan tuurno, inaan ducuf ogolaano. السلام عليكم ورحمة الله.